مسؤولينta maamulka gobolka Togdheer ayaa si wada jira bulshada ugu baaqay qaadashada kaadhka diiwaangelinta madaniga oo maanta si rasmi ah uga bilaabantay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad, barasaabka gobolka Maxamed Diiriye Xayd, xogayaha fulinta dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh iyo saraakiisha diiwaangelinta ayaa faahfaahin ka bixiyay habka diiwaangelintu uga socon doonto gobolka Togdheer. kaarku waxa weeyaan kaarka aqoonsigu waxa weeyaan waa shakhsiyadda qofka hadii aanu wax lagu garto sidan waa iska xoolo bilaa sumada ayuu noqonayaa. waxaan aad ugu boorinayaa shacab weynaha gobolka Togdheer ama magaalada Burco oo ay maanta ka socoto diiwaangelintii inay qaadataan waraaqihiinii aqoonsiga sida u noqotaan dad sumad leh. ugu yaraan horta hal bil way ka soconaysaa magaalada Burco, kadibna waxaanu u gudbaynaa degmooyinka. waxaa halkan ka bilaabmaya gobolka Togdheer degmada Burco diiwaangelintii madaniga. waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Togdheer ama reer Burco inay si quman oo hagaagsan oo karaamo iyo sharaf leh ay u gutaan xilka iyo waajibaadka diiwaangelinta oo ah muwaadin kasta oo reer Togdheer inuu isdiiwaangeliyo. waayo haddii maanta ay ku dhaafto waxa laga yaabaa inay kugu adkaan doonto sida mar dambe isu diiwaangelisay. waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolka ku nool ama degmada ku nool inay qaataan ka faa'iideysan chanska maanta. kasta laba caaqil baa joogaya. caaqilkaasi wuxuu kala soocayaa dadweynaha reer Burco ama dadka reer Somaliland ee sheeganaya haybta Somaliland. qofkii aan haybta Somaliland hayn inaanu kaarkan qaadanayn. horta waxaan idin sheegay shaqaalaha ka howlgeliya magaalada madaxda Burco waxa weeyaan 84 ay ka kooban yihiin. waxay ka shaqeyn doonaan 18 goobood. waxa weeye mataqaanaa qalabkan ku shaqeeyna waa qalab casri ah oo ku noqnoqosho lahayn. marka la eego tirada goobaha diiwaangelinta ee loo qoondeeyay gobolka oo dhan 28 goobood iyo baaxadda gobolka ayaa u muuqda kuwa aan ku filayn. Kaysa Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.